ugu dambeyn asxaabi waxa soo gaanay kala bar animeegi maantana waxaan noo wadaa xalqadii 6aad 7aad iyo 8aad xalqadii shanaad waxay noogu joogtay ninkii boqorkii soo baxay oo leh maxaad meesha ka soo doonteen in badan bay idin digo iga laabta laakiin ugu waad diideen soo maaha hadda ayaad ka shaleyn doontiin kaasoo rabo inuu soo saarto awoodiisa haddaba xigma asxaab nooga sii wadaya ee fadlan muuqaalka like saara like asxaabi waa muhiim ee like dhac ku sii kanaalkana subscribe soo saara oo nagu tuura 9k iminkana inoo bilaaba xalqadeena 6aad intuu ninkii hadlay boqorka ahaa wuxuu bilaabay inuu ku tanamuro dadkii oo wacni uu jeeso oo dadkii suxun u aflagaadeeyo laakiin intuu hadlay ayaa waxa dhaynay gabadhii kamid ahayd wiilkii gaal lamid ah kooxiisa ama gabadh loo yaqaan jin ayaa ku soo suurta qaanso laakiin iska difaaca qaansadaasna waxa dhaynay dhaawacdo daawacdo kadib wuxuu xanaaqaa wuxuu yiraahdaa sid ugu dhiiratay in aniga maanta igu soo turta qaanso wuxuu isticmaalaa awoodiisa awoodayda ku soo socota ayaa gabadh jiniyada waxay uga dhigtaa diric ama gaashaan kadib gaashaanka markii kaga dhigto wiilku waxa dhaynay xamaasad dareemo ku ora walaasha soo badbaadana ninka leeyahay kadib gabadhii jineed waxay bilowday soo cararto ninkii barafka soo cararto oo intii soo caraysay ayaa ninkii jinka ahaa ama ninkii boqorka wuxuu isku dayay inuu soo weeraro gabadhii laakiin wiilkii gaay wuxuu bilaabay kor istaago gabadhiina waxay bilowday fursad u yeelato inay walaashii soo badbaadiso ay ka jabiso wixii ay ku xineysay walaasheed kadib markay ka jabiso ayaa ninkii boqorka waxa dhahay inuu si xanaaqo oo awoodiisa isticmaalo oo gabadheeda yiraahdo adiga ku dhiirtay in walaashii jabisay baalkii ku xinay soo maaha intuu hadlay waxa dhahay gabadh kale soo weerarto laakiin intuu gabadh ku jeeday ee gabadh kale waxa dhahay inay soo weerarto asxaabtii ku furaan xabado laakiin ninkii waxa dhahay inay naagtu shaqeynaysa inay istiraado caawi laakiin taasna waxa dhahay xabad yar in lagu furo oo dhabarka mid kaga timaado iyo tiin ku mashquulsan tahay ee tii kale waxa bilaabay caawi istiraado laakiin ninkii gaashaanka xinaa ku yiraahdo aduu istaagoonay ku sheegay in anigu adu labadina isbeegsanayno kadib wuxuu taawday way gaar hoo qabso darbadana kadib darbada ninkii gaashaanka ku jiida markay kaas kaato ayaa tiraahdaa ninkii wuxuu nin aad u awood badan laakiin ugu dambeyn waa ka adkaaday ninkii wuxuu yiraahdaa wadiga awood badatay haddana waan kuu qiray oo oris ka soo celin ninka boqorka marka hore isagu wuxuu ahaa nin daalim ah oo bilaa naxariis kadib gabadhu waxay ku bilowday iska aamusto naagtii kale u shaqeynaysa ninka boqorka ayaa waxna soo istaagtay meeshii kadib gabadhii kale waxay ku tiraahdaa adigu aan ka adkaanay ee maxaa awood leedahay iska aam kadib hadaleysa waxay tiraahdaa xaaladaha nimo yani waxyaabaha ku sugan tahay hadda way isbedeli doonaan waxna ka dhiman intuu yar xanaaqayo ninka boqorka aniga ninkii waxa inuu soo daadago yiraahdo hadda weyn salaam asxaabay iminka wax soo saaran awoodeedii wuxuu soo saartay jinkiisna wax loo yaqaan Mikey kadib wuxuu ku diraa ku yiraahdaa isoo burburi kuwaas jinkan wuxuu bilaabay awood isticmaalo oo dadkii meesha dhan uu ka kiciyo meeshii duufaan kadib ninkii jinka ahaa wuxuu wiilkii xusiyaa awood gabadhii labkaysatay jin loo yaqaan soo weerarta laakiin labkeedu wuu jaraa markaas ninkii boqorka la wuxuu ku yiraahdaa awooddaas iska kiciyo ninka gaaybeeso gaan wuxuu yiraahdaa ma noolaha noocan ayaan iga adkaan kara kadib ninkii boqorka wuxuu ku yiraahdaa waad arki doontaa saaxiib iyo saas kula hadlayaan ee wiilkii gaay wuxuu yiraahdaa haddaba noo bilo ciyaarta dhabta ninkii waxa dhayn wuxuu yiraahdo maaniga saamaanta igu leedahay kadib waxa dhayn shucuurtiisa ama yani dareenkiisa ama xamaasad dagaal ku qabay ananimada ahayd ee kor u kacdo ninkii wuxuu bilaabay awoodiisi uu ka soo baxo meel yani sixira uu ka soo baxo gacantaas inay qoorta ay qabato oo meel u jiido laakiin wuxuu ka soo laabtaa sidii hore isoo ka awood badan oo hadda noqday shariir weyn oo aan waxba kala xasuusan indhihiisa midabkiisa isbedeleen wuxuuna yiraahdaa hadda ay 10 bilaac waan idin dhigi doona waxna bilaabay awood soo isticmaalo laakiin awooddaas waxa diric ama gaashaan looga dhigo gaashaan sixir ah laakiin gaashaan kama awood bato waana soo jabiyaa kadibna gabadhi walaal waxay ku tiraahdaa hada waxa qof wanaagsan oo naxariis badan laakiin hadda wad isbedeshay ee fanasaada hore ku soo laabo ninkii wuxuu yiraahdaa qofka tii sheegaysa inaan ahay anigu weligii ma noqon gabadhi wuxuu bilaabay soo resto laakiin gabadhi waxa gaashaan looga dhigo ninka waa nin halis ah sadaraadii taxadirkaaga badi wana ku kalsoonaan weliga maadaama ninkuu noqdo nin halis oo shariir oo dhib badan markaas gabadhu ay aamintaa waxay tiraahdaa mar dambe kuma soo kalsoonaan noocan oo kale ninkii boqorkaana waxa dhayn si awoodiisa u bilaabo gabadhi soo resto laakiin weliga gaay hor istaag wuxuu ku yiraahdaa inta noolahay mid kamid ah kooxay ma dhaawacaysid saameyn ama dhibaato uma geysan kartid kadib wiilkii gaay wax bilaabay la xifaaltamo wiilkii gaay wuxuu isticmaalaya saawirka ama yani safety oo la ninkii yaqaan shifo safetaas oo safe aad awood badan oo dadkan shayaadiinta ka wada cabsadaan ayna kan markaas ninkii wuxuu yiraahdaa shaydaankii wuxuu yiraahdaa maaniga saas ugu leeyahay wiilkii gaay kadib wiilkii gaay wuxuu bilaabay inuu qunta qabto oo ciijiyo ku yiraahdo haddaba isdii wiil yahow laakiin soo iso saaytahay xaalkii oo ninkii wiilka qoorta hayo wiilkii gaay ayaa gabadhii jimbe isticmaalay awoodeedii leeb ayna ku soo siidiisa laakiin wiilku
wiilkii waxa in ka fuqoos dhulka ku sii daa wiilkii ninkiina waxa uu soo dhaawacmo oo aad u xanuunsado kadib uu jirkiisa daciifo ama awoodiisa kor u kacdo kadib markuu jirkiisa daciifo wiilkii waxa inuu feero oo dhulka ay ugu dhaco ninkii boqorka markii intaas dhacdo ninkii boqorka wuxuu yiraahdaa hadda waxaan noqday qof meedan awood lahayn waxaan niga codsanay inaad idishiin maadaama garanay waxaan sameeyay hadda kadib waxa dhacday gabadha soo istaagtay wax ku tiraahdo adiga kuma dilayno sababtoo waxaad ku gashay ruuxda jinka ahayd ama jinka ayaa ku galay adoo kaliya waxa ahayd qof isdifaaca ma ahayn qofka mar walba dagaalama ninkii loo yaqaan Shifona waa ninkan xagan ku gartaagan loo yaqaan Guy markuu ninkii intaas maqlo wuxuu yiraahdaa waan shakisana marka hore waxaan islaanay Shifo la sheegay seefta barakeysan ama seefta awood lahayd haystay wiilkan Guy ma laga yaabaa inuu noqdo haddana waxay cadaatay inaad adigu noqotay wiilkii Guy wuxuu ku yiraahdaa ma aan weligii ma noqon Shifo laakiin marka hore waxaan ahaa role model ayuu ahaa oo ku daba dayin jiray wiilkii wuxuu ku yiraahdaa haddaba hadduu role model ku ahaa hadda maxaad rabtaa ama caalamka maxaa ahmi ka leedahay wuxuu ku yiraahdaa kaliya waxaan doonayay inaan soo badbaadiyo dadkan masaakiinta shayaadiinta wuxuu meelo ku xaniman kadib waxa dadka intaas markuu sameeyay ninkii waxa ninkan boqorka u dhinto kadib ninkii Shifo ba meeshii maada wuxuuna qaaday gabadh yar jinniyad ah laakiin waxa kana gabadh yar waxa isku riyoonaysay ninkan Shifo ma qaadin ee wali caalamka lagu soo celiyay oo wiilkii Guy ay meeshan keenay kadib gabadhii jinn waxay ogaataa in gabadh yar ay gabadh yar jinniyada oo aysan bil aadan ahayn maasa gabadh ku tiraahdaa waxa ka codsanaya fadlan inaan ay khashifin maadaama ahay gabadh jinniyada waxaana ka codsanayaa in maanta sirta kaliya ilaalisid maadaama aad tahay qofka saaxiibadaya ee igu dhow nolosha markaas gabadh jinn wax ku tiraahdaa waan wax kuma ka shifayo laakiin adigu aan noqon jaasuusad oo u shaqeysa jiminka aan noqon intaas oo kale nagu caawi maasa gabadh ku tiraahdaa weydin bal qaadaya inaan weligii noqon jaasuusad u shaqeysa jiminka taasina waa wax marka hore isku baranay Guy markii goobada Guy isbaranayna anoo silsilad lagu xirxiray oo shayaadiinta ay dili rabaan ayuu badbaadiyay isaguna si wanaag laakiin ugu dambeyn waxaan noqday qof daacad bil aadanka haddana ma noqonayo qof abaal daran oo bil aadanka abaalkan ay galeen ay wali u haya iyagoo raba in ay dilaan uu Guy soo badbaadiyay kaana waa qof bil aadana sal ajligeed ban khiyaamo ama saamin ugu geysan doonin dadka bil aadanka kana gabadhii jinn waxa inay aaminaan oo gabadha miskiinta soo dhaweeyaan subaxdii markii la gaaro boqortooyada kaynta ahayd ay jinn ka talinayeen markii dadku soo ceshtaan dhulkooda ama dadka masaakiinta laga haystay bil aadanka ahaa ayaa waxa heshiiskaas oo ah in qaawadan ama kayntan uusan qof bini'aadan soo geli doonin mar dambe kadibna gabadha jinn wax bilowna mahadcelisay ku tiraahdo mar haddaan iga dilnay ninkii boqorka saameynta dhibka badnaa aan soo ceshay dhulkeenii hadda iskaga baxayna kayntan mar dambe naguma soo laabanayno iyagoo bixira waxa in la siiyo hadiyada yar cunno yar kadibna waxa la siiyaa bahaladaasna waxa lagu yiraahdaa albaabka kaynta markaa ka baxaysiin ka qaataan nimanka waashmaanka tusa si ay ugu noqoto cadayn markaas gabadh wax bilowna ka qaadaan waxayna imaadaan meeshii xafiiskooga ahaa ay ninkii saag loo yaqaanay oo talnay waxana ku yiraahdaan waxaan la kulannay jiminkaas qaarna way xumaayeen qaarna way fiicnaayeen ugu dambeyn waxa dilay boqorka daalimka ah ee dadka jiminka masaakiinta ku caawin doon jiray ama mar walba qashqashaadi jiray markii intaas dhacday waxa dhayn intaas inay noogu dhamaato xalqadeeni 8aad xalqadaha kale saxay wala soo dhaqsan doonaa kali 4 xalqo kaliya noode 4 xalqana muuqaalka xigeen soo dhigi doona heefal muuqaalka like saara kanaalka ku soo biiro subscribe saara maca salaama wa shuufakum fiihi xalqa jaaye